الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال وحان ربا إنان إذن لو داقو ميالك استوء شوكتان خطرت يدباتوينك ولي هاي ماندوريو نوعيدي سكال الدوان بلشدي إن أيو كل حفافي عاصمة قبلة تولوينك وحفافيا أي وحشيشكي وخمردي وشاتكي ونوعية كله وسيدة طوبا كذا الله عنهايو وكنيني دروغة ودلنيردي أي لقى هيان عنهايان وعربض الاستعمال أو دروغة أو قفك اللي قدره هيو وحا آدي ديغان كوفافيا لقب الله بعاصمة قبلة تولوين كدمان daroogadaas iyada ah oo kala duwan oo mujtamaceeni lagu baabi'inayo ragii baa isticmaalaya dhalinyaradii jaamacadaha ayaa isticmaalaya kuwii iskuulada ilaa ay gaartay in gabdhihii ay isticmaalaan oo ay noqoto waxa gabdhahaasi waxa weeyaan yar yarka alla barahaya kaniinigii iyo cirbadihii iyo xashiishkii noocyadiisi kala duwanaa gaari gacmo ayaa lagu gadayaa meelaha qaarkood iyo suuqyada oo macruuf ah waxa laga keenayaa dibadda dalal kala duwan baa laga keenayaa bal waxay gaartay in meelaha qaarkood dalka gudihiisa meelo kamida lagu beero xashiishkii arinka isaga arin khatar weey waa arin mujtamaca baabi'inaya diinkiisa iyo aqligiisa iyo dhaqaalihiisa iyo tarankiisa iyo caafimaadkiisa damaaraya oo baabi'inaya weey وأرين وحويان دلينيسا أمن الآن واحد مغليسا قبرير أو لكف صدي واحد مغليسا المير أو لليا والكف صدي واحد مغليسا سرقة حتوي واحد مغليسا دل محايا لقفك مركو دروغي سنية هاي وح الله عليه وحو كوابنا يماله عدو أي نوت الشضي وفافين إياه هبئ يمالي kuwa ilaahay subxaanahu wa ta'ala iimaankoodu uu daciifay oo waxa weeyaan xalaal iyo xaraan midna aanu aabayeelahayn ayaa waxay ka taajirayaan daroogadaas ilmaheena baabi'inaysa gabar iyo wiilna aanu aabayeelahayn jamlay ku gadayaan tafaariiq bay ku gadayaan dalka gudihiisa ku beerahayaan calaqii bay u shubahayaan tuulooyinkii baa la geynayaa meel walba ayaa la faafinayaa ayadoo sun ah إلهي سبحانه وتعالى نبي الله محمد ونصر دري وحكوت المام النبي عليه الصلاة والسلام شرعي إنه لكوسو ديبي ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وحو إلهي صادر النبي ومضى وحى الله عليه وحى طيبات كأو حلالين إياه أنا الشيء هي إن إلهي كحرم وحيالها خبائثته noocyadaas waxa keena daroogada dadku inay daroogada ku bataan oo habeen iyo maalin dhalinyaradu ay ku fitnoodo afar arimood ba ugu waaweyn ee ugu arinka koobaad waxa weeye dacful iimaan qofkan iimaankiisu markuu daciifo wuxuu u bareerayaa xaraamta noocyadeeda kala duwan buu u bareerayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri innal iimaan la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu ath-thawb iimaanku waa baaliyooba sida maradiinu ay u baaliyowdo ayaa iimaanku u baaliyoobayaa fas'alullah an yujaddida al-iimaan fi qulubikum ilaahay waxa su'aalatan iimaanka qalbigiina inuu ku cusboonaysiiyo hadii iimaanku daciifo daroogada ayaa qofku u bareeraya zinada ayuu u bareeraya xumaanta u bareeraya waxa keena oo kale waxa weeyaan ar-rufaqatu sayyi'ah saaxiibada xun oo wiilkaagu ula saaxiibayo waxa weeyaan saaxiibada xun ayaa barahaya laba iyo saddex xun ayaa maalinba mid barahaya saaxiibada xun dhibaatada ay leeyihiin kamid tahay walidaalika nabigeenu wuxuu yiri alayhi salatu wasalaam almar'u ala diini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil qofku wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkiis ayuu haystaa ee ha eego qofku cid uu la saaxiibayo hadii wiilkaaga iyo gabadhaadu dad xun ay la saaxiibaan daroogada iyo xumaanta ka barayaan arinka saddexaad oo keena daroogadaas in dhalinyaradu ay ku daadato waxa weeyaan al faraaq qofkii oo jaanis firaaqa hela
uunan shaqaysanahayn diin uusan baranahayn adduunyo uusan baranahayn guriga uu iska fadhiyo shaqo la'aan uu yahay meel uu dhaqaaqa aan garanahayn asbaabaha keena ayay ka mid tahay dhallinyaradu waxaa daroogada barashadooda inay ku fakaraan oo faraaqada haddaan qofka looga faa'iideynin meel xun buu uga faa'iideysanaya arrinka afraad waxa weeyaan oo in dhallinyaradu ay aad iyo aad ugu daataan keenaa waxa weeyaan dareenkii waalidka iyo mas'uuliyaddii aabbayaal iyo hooyooyinka laga rabay inay la yimaadaan ayaa meesha ka baxday wiilkii waa baxay wax alla wuxuu ku maqan yahay lama yaqaan cidda uu la socdo lama yaqaan meelaha uu fariista lama yaqaan masaajidda lagama helo dugsiyada quraanka lagama helo xalaqaadka cilmiga ma joogo dukaan uu ka shaqaynayo male meel uu tacliim u aadayo male saakaybuu baxay qaduu u soo doontay casirkiibuu baxay habeenkii 6 saac gurigoo la xiruu darbiyada ka soo booday aabba dhihi mahayo wiilku xagee ku maqan yahay gabadhii way baxaysaa meel kastay wareegaysaa hooyo dhihi mayso gabadhii aaway dariskaana aaday bay leedahay gabadhaan wax la soo akhrisanayaa bay leedahay saaxiibtay baan aaday meel baan u raacay la dhihi mahayo meeshu maxay tahay la isweydiin mahayo mas'uuliyaddii aabbayaal iyo hooyooyin ilmahooda ka saarnayd oo ay dayaceen waxay fududaysay habeen iyo maalin inaan arkayno dhallinyaro dhacdhacaysa oo koombooyin sita oo daroogada cabbahaya oo dariiqyada taagan ayay keentay arrinka isaga walaalayaal waalidka waxaan leeyahay ilaahay ka baqa ilaahay awlaad buu idinku arsaaqay awlaadda khayr kula didaala haddaa ka rabtaan adduunyada inaad wanaag iyo nolol fiican ay ku noolaadaan idinkana idin baarinimo sameeyaan sidii xoolo soofay waxa weeyaan ha u daynina ee weydiiya meeshay aadeen dabagal ku sameeya waxa ay ciday la saaxiibeen fiiriya si aad ugu guulaysataan hadday khatar ku jiraan aad khatarta uga badbaadisaan ilaahay ka cabsada oo mas'uuliyad baa idin saaran nabigu yiri kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi dhallinyarada waxa ku fidnoo waxaan leeyahay walaalayaal caafimaadkiinii baa ku baaba'ahaya dhaqaalihiinii baa ku baaba'ahaya akhlaaqdiinii baa ku baaba'aysa diinkiinii ayaa ku baaba'ahaya oo waa min al-kabaa'ir dambiyada waaweyn waxyaalaha noocaas oo xaraamta ah ilaahay ka cabsada oo isdaba qabta oo ilaahay u toobad keena oo saaxiibada xunjara kuwa lagu fitneeyay waxa inay suuqa keenaan oo ka taajiraan waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada xoolahaas markaa dhimataan la idinka karfani mahayo xaj kama aadi kartaan masaajid kuma dhisan kartaan sadaqa in kaga bixi mayso waxa aad aruurinaysaan oo xaraamta ah dabaqyada aad ka dhisaysaan ilmihiina ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinku ciqaabaya mujtamaca saa u fasaahadiseen oo waxa weeyaan u baabi'iseen ilmihiina ilaahay inuu ka dhiga kuwa xun oo ayaguna baabaa oo waxa weeyaan dhibaato iyo mushkilad aad kala kulantaan ilaahay ka baqa oo risqiga xalaasha ah bol aliyaalo meel kale ka raadiya oo ilaahay ka baqa oo meel kale ka raadiya waxaan ugu dambayn leeyahay cid kasta oo la dagaalamaysa waxyaalaha daroogada ah oo magaalada ku faafaya hadday tahay xashiishka iyo noocyada kale oo khamrada ah hal la wargeliyo oo hal la gacan siiyo oo meelaha lagu hayo oo lagu samaynayo darisku ha ka warbixiyeen oo hal la xariireen cid kasta oo baabi'inaysa hal la xariireen ilaahay mujtamaceena hayno badbaadiyo dhalinyaro iyo aabbayaal iyo hooyooyinba ilaahay hayna hanuuniyo masaalixdeena adduunyo aakhirana ilaahay ran garansiyo wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in